الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إلهي تبارك وتعالى عليه وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وإلهي تبارك وتعالى كنت المامي آيادا سلاح كنت المامي inay jiraan calaamooyin iyo cibro mudan, calaamooyin loo cibro qaato mudan inay jiraan haddana loo cibro qaadanaynin. Aayaadkaas waxay tilmaamayaan ay muujinayaan calaamooyinka lagu garanaya jiritaanka Allah tabaaraka wa tacaala ama awoodiisa ama qeyb ay tilmaamayaan, haddana loo cibro qaadan maayo. In loo cibro qaato, loo waana qaato la yeeli maayo ayuu Ilaahay tabaaraka wa tacaala ku tilmaamay aayadda. Ilaahay tabaaraka wa tacaala marar badan wuxuu inoo tilmaamay calaamaadkiisii lagu garanayo jiritaankiisii, awoodiisii iyo qeyri. Intaas ayuu Ilaahay tabaaraka wa tacaala inoo sheegay, inoo tilmaamay. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. aayaadkiis waxaa ka mid ah inuu idinka abuuray maxaa yidhaahdaa caro. waxaad ka abuurantihiin, aad ka samaysantihiin waa caro weyn. Ilaahay tabaaraka wa tacaala yidhaahda markaas aad ahaateen bashar faafaya oo qulqulaya. waxaad noqoteen bashar faafaya oo qulqulaya ayaad noqoteen. Ilaahay tabaaraka wa tacaala waxay ka mid tahay waa calaamaadkiisii lagu garan jiritaankiisii, awoodiisii. wuxuu Ilaahay tabaaraka wa tacaala dhahay waxaa ka mid ah inuu idinka abuuray nafafyaalkeeni oo idin abuuray maxaa yidhaahdaa aswaajan zawj. wuxuu Ilaahay idin abuuray zawj, yacni eesh macna wuxuu idin naftiina ka abuuray zawj buu Ilaahay ka abuuray. yacni dumarka asalka waxay kasoo jeedaan ragga. matalan Xawaa markuu Ilaahay tabaaraka wa tacaala oo qalqay Aadam oo abuuray, wuxuu ka abuuray Xawaa feertiisii. sidaaradeeda marka waxaa laga wadaa an khalaqa lakum min anfusikum azwaajan taawiyan. dumarka asalka waxay kasoo jeedaan inanka ragga ah. saad litaskunuu ilayha, saad aad maxay yidhahdaa ku tagtaan. sababta Ilaahay tabaaraka wa tacaala oo nafyaalkeena sabab u abuuray waxay tahay
waa inaad ku degtaan aad ku xasisaan. wuxuuna ilaahay tabaaraka wa tacaala yeelay dhexdiina kalgacayl iyo naxariis iyo isku turid buu ilaahay tabaaraka wa tacaala yeelay dhexdiina. yacni marnaba kala didi maysaan, kala ordi maysaan. wuxuu yeelay mawadda iyo waraxma. taa waxay calaamo u tahay liqowmi yatafakkaruun. calaamo waxaa kaloo ka mid ah aayaadkiisa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala abuuray samadan iyo dhulka. samadan iyo dhulka ayuu abuuray. wuxuu kaloo abuuray luqooyinkiini luqooyinkiina kala duwan. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم كاللغات بالله تبارك وتعالى نهي لي كلمة واختلاف ألسنتكم وألوانكم اسكو لغات منهنا اسكو مدب منها. ومن آياته كم التحي تاسن وحا علامة التحي قوم وحقرنا آيات للعالمين. وحاق لك من آيات كيسا إنه إله سبحانه وتعالى هوينك إيمانتا محير هذا إني يلي هردو وإني إلهي إني يلي مالنك هوينك با هردو إله سبحانه وتعالى إني يلي وحان رادسان فدزيسا. يعني أسبابتا آد محير لتماتان أسبابتا آد الإيمان إنسان أو حرادين إنسان فدزيسا. taasina waxay calaamo u tahay qoom wax maqlaya oo wax garanaya. waxaa kaloo ka mid ah aayaadkiisa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala idin tusay hilaaca roobka inuu imaan tilmaam ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala idin tusay idinkoo ka baqaysaan. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون كبقيسان إذنكم محير هذا رجينيسان مرة كبقيسان مرة رجينيسان. وحول الله سبحانه وتعالى سجد حق سمدة بيها سونولين وحيالها دينتي ويحيي به الأرض بعد موتها وحيالها دينتي أيا بيها سينولين يعني. taasina calaamad waxay u tahay qoom wax garan. ilaahay tabaaraka wa tacaala waxay idin tusay hilaacaas waxay astaan u tahay roob. marka ilaahay tabaaraka wa tacaala idin tusay idinkoo ka baqaysaan. baqitaanka macnaheedu waa mar waad ka baqaysaan aad dhihiysaan normeey biyahan hilaacan roobkan soo socdo wax aafiistaa. mar waxaad dhihiysaan barwaaqo iyo caafimaad iyo maxaa helnay ayaad dhihiysaan. marna waxaad dhihiysaan waraman aafo ayuu keenaa. waxay ka mid tahay min aayaadii. waxaa kaloo aayaadkiis ka mid ah inuu xagga samada biyo kasoo jeediyo waa roobka. kabacdina biyahaasi ay nooleeyeen waxyaalaha dhintay. wa min aayaadii awooddaas cid kala hayso ma jirto ina ilaahay tabaaraka wa tacaala mooye. waxaa kaloo ka mid ah inuu samada iyo dhulka istaajiyey biamrihi ay ku istaagiyihiin. samadan ujeedaan iyo dhulkan ilaahay tabaaraka wa tacaala amarkiisa bay ku taagan yihiin. amarkiisa ayay ku taagan yihiin. yacni samadan tiir la-aan bay taagan tahay. tiir la-aan ayay samadan taagan tahay. wa min aayaatihi ayay ka mid tahay. dhulkan waa sidoo kale. marka intaas aayadahaas waxay tilmaamayaan awoodda allah tabaaraka wa tacaala iyo maxay yidhaahdaa